daawadayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha qaybta YouTube-ka ee Balcad News. Qaranka Uganda ayaa guul ku bilowday koobka qaaradda Afrika kadib markii guul u qalmeen ay ka gaareen xulka qaranka Congo kulan ay ka tirsanaa gruupka koowaad ee tartanka koobka qaaradda Afrika. Kulankan ayaa ahaa mid uu xulka qaranka Uganda ku awood badnaa iyaguna ay ciyaarta ku bilowday si dardar leh. Xulka Congo-na ku qaadaya weerar iyo waliba weerar celis. Ugu dambeyn xulka qaranka Uganda ayaa waxay guul u qalmeen ay ka gaareen dhigooda waa xulka qaranka waa Congo iyaduna 2 gool iyo waxba ay ugu awood sheegteen dhigooda Congo. dhinaca kale waxa wada ciyaareen Nigeria iyo waliba Burundi oo ku wada jiraan gruupka B. xulka Nigeria ayaa 1 gool ku adkaadeen halkaasi goolna waxa uu leeyahay xidiga lagu magacaabo waa Kamara. sidoo kale isla gruupkaasi B oo ku wada jiraan xulka waa Guinea iyo waliba Megasan. kulankan ayaa waxaa la iska dhaliyay 4 gool wuxuuna ku soo idlaaday barbardhac min 2 gool. sidoo kale xulka jaalayaasha ee Brazil iyo waliba Peru ayaa wada ciyaareen tartanka Copa America gruupka A. xalay waxaa ka soo wada baxay xulka Brazil, Venezuela iyo waliba Peru iyaduna xulka qaranka Brazil ee xalay 5 gool iyo waxba ay ku garaaceen dhigooda xulka Peru ee ku wada jiraan gruupka A. sidoo kale ciyaaraha caawa jiraan haddii aan eegno kulanka labada sugaya waa kan u dhaxeeya xulka Qatar iyo waliba Argentina. xulka qaranka Argentina ayaa la ciyaari doonta xulka qaranka Qatar kulankooda ugu dambeeyay wareegga guruubyada kana tirsan tartanka Copa America 2019 kana socda dalka Brazil. xulka Argentina ayaa kulanka soo galaya iyagoo aan ogsoon inay guul kaliya ay ka caawinaysa inay u soo baxdo wareegga xiga tartanka Copa America oo sii wataan tartanka wareegyada damba. dhanka kale xulka qaranka Qatar ayaa tartanka bilowday iyagoo rajo aad u yar ee ka helay inay wareegga xiga u gudbaan laakiin waxay fursad u haystaan inay sameeyaan lama filaanka ugu weyn ee heerka caalami iyaguna u gudbi kara wareegga xiga haddii ay garaacaan dhigooda Argentina. kulankan waxaa la daawan doonaa caawa 4 saac ayaa la daawan doonaa tartanku waa Copa America. garoonka lagu ciyaari doona waa Arena de Garomen. xaqiiqooyinka kulankan ayaa noqon doona midkii labaad ee taariikhda aana dhaxmara labada xul ee Argentina iyo Qatar tartamada oo dhan iyadoo ay kulankii hore ay wada ciyaareen sanadkii 2015. kulankan ayuu xulka qaranka Argentina ku bilowday 3 gool waxba iyagoo ugu mahad celinaya xidigaha Juan Roman Requiem iyo waliba xidiga lagu magacaabo Roberto Ayala. sidoo kale Copa America gruupka B ee ku wada jiraan xulka Colombia iyo waliba Uruguay ayaa caawa 4 saac wada ciyaari doonaan. xulka Colombia oo hal lug la sii galay wareegga xiga ayaa waxay caawa 4 saac la ciyaari doonta xulka Uruguay. sidoo kale World Cup Women's ama koobka adduunka dumarada ayaa la ciyaari doonaa caawa maqribka 12 saac iyo bar. gabdhaha England waxay la ciyaari doonaan gabdhaha Cameroon. sidoo kale caawa 4 saac waxaa wada ciyaari doona gabdhaha Brazil iyo waliba gabdhaha Faransa. sidoo kale tartanka Africa Cup gruupkiisa C ayaa la ciyaari doona caawa. kulanka labada sugaya wuxuu u dhaxeeya xulka Senegal iyo waliba Tanzania caawa 2 saac ayuu soo gali doona kulankaasi. sidoo kale caawa 5 saac waxaa wada ciyaari doona xulka Algeria iyo waliba Kenya. kuwaasi waxay ahaayeen kulamadii la soo ciyaaray iyo waliba kulamada caawa la ciyaari doona. bal haddii aan halkan idinku soo gudbiyo haddii dhinaca kale aan eegno suuqa kala iibsiga dhaqdhaqaaqiisa kooxda Man City ayaa hogaamiyo tababare Pep Guardiola ayaa difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa maalmihii ugu dambeeyay la xiriirinayay saxiixa daafaca kooxda Napoli iyo xulka qaranka Senegal Claudio Koulibaly. laakiin kooxda Man City ayaa la sheegayaa in ay wax xiiso u qabin saxiixa daafaca birta ee Claudio Koulibaly iyagoo aan wax xiiso u qaban in ay dalab ka gudbiyaan xagaagan inkastoo si weyn loola xiriirinayo adeegiisa xidigaasi. wargeys lagu magacaabo Tutto Sport ayaa sheegaya inuu tababaraha Man City Pep Guardiola uu doonayo saxiixa daafaca Claudio Koulibaly si uu ugu xoojiyo daaficiisa waliba kooxdiisa uu sheegay inay bangi u jibiyaan saxiixiisa. laakiin wargeyska lagu magacaabo Sports Mail ayaa haatan sheegaya inay kooxda lagu naaneeso Sky Blue ay doonayaan saxiixa xidiga reer Senegal.
Koulibaly ayaa ka mid ah daafacyada ugu fiican adduunka waqti xaadirkan, asigoo qaab ciyaareedkiisa kusoo jiitay kooxo badan oo reer Yurub ah kuwaasi oo ay doonayaan adeegooda, laakiin kooxahaasi ayayna ku jirin kooxda Man City kuwaas oo aan dooneynin adeega xidiga daafaca dhexe ka ciyaara, maadaama oo macallin Pep Guardiola aaminsan yahay inaan xitaa u baahnayn daafac cusub ee xagaaga dambe kusoo biiro kooxdiisa ee Manchester City. Sidoo kale dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga kooxda Juventus ayaa u muuqata mid ay ku guuleysatay saxiixa xidiga daafaca ugu ciyaara xulka qaranka Holland iyo kooxa Ajax Amsterdam ninka lagu magacaabo Matthijs de Ligt, kuwaasi oo ay ku garaacay adeegiisa kooxaha Barcelona PSG, laakiin kooxda Manchester United ayaa faa'iido weyn ku qabta guuleysiga Juventus saxiixa daafaca Matthijs de Ligt. Juventus ayaa horumar lama filaan ah ka sameystay bacsigii ay ugu jirtay saxiixa xidiga daafaca reer Holland Matthijs de Ligt, iyaguna ku dhow inay dhameystiraan saxiixiisa xidigaasi ee u ciyaara kooxda Ajax Amsterdam. taasi ayaa kooxda Juventus ku dhalinaysa inay gabi ahaanba isaga harto bacsiga ugu jirta inay helaan xidiga lagu magacaabo Paul Pogba. dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa xaqiijisay inuu xidiga weerarka ugu ciyaara kooxdeeda ee Gabriel Jesus kooxda u qaadan doono lambar cusub wixii ka dambeeya xil ciyaareedka dambe. xidiga weerarka ugu ciyaara xulka qaranka Brazil ayaa haatan kooxda Man City u xiran jiray lambarka 33 balse waxaa farta laga saaray lambarka 9. xidiga weerarka ugu ciyaara ayaa Man City kusoo biiray xagaagii 2017 asiguna ugu soo biiray lacag dhan 30 milyan oo euro, asagoo weliba door muhiim ah ka ciyaaray kooxdiisa ay ku guuleysatay horyaalka Premier League 2 sano oo xiriir ah. xidigan ayaa kooxdiisa ilaa haatan u ciyaaray 68 kun, asigoo u dhaliyay 27 gool tan ilaa markuu kusoo biiray kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee dalka England, iyaduna ay maanta barteeda Twitterka ee kooxda Man City ku xaqiijisay Gabriel Jesus hadda kadib inuu u qaadan doono lambarka 9 ee kooxda Man City.